soo noqod wacan waanu kala raagnay ayaamahan waxaan ugu wacan caado xun oo aan bartay awgeed caado soo ah in aan isdhaho markasta ka dhig videogaaga perfect wax perfect ama jiro qofka ugu khatarsan iyo kan bilowga ah intaba waxa dhacda in ay khalad galaan markasta ay wax sameynayaan sida awgeed qofku waxa fiican in wax uu soo geliyo daily ama weekly hadee doonto wax ka khaldamaan ayaa waxay dhaantaa in aad wax soo gelin oo asugtid in wax kasta soo ka hagaagayaan ama qalabko dhan ama technique oo dhan ama wax kasta oo dhan ay ku dhameystirmayaan ugu maanta ma aha mawduucaas in ka hadla laakiin waxa igu khalifay maadaama aan cabaar maqnaa hadda qoomameyntii weeyaan taas haddaan ka dugudubno maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo xaalad igu soo kordhay iyo laba dareen oo aniga aan dareemay oo labadaas dareen oo isdiidaya dareemadaas waxay yihiin iyo xaaladda naftirkeed igu soo kordhay waan ka wada sheekaysan doonaa koob shaah iyo guriga soo noqod wacan mudaynu kala maqnayn runtii muddada aan maqnaa waxaa sabab u ahaa ama aan dhihi karaa waxaa reerka soo kordhay alxamdulilah wiil oo u baahan isagana waqti inaan siiyo sida awgeed ayaan kala raagnay oo waqti baa hagaagiliyay adaba mawduucina maanta ma noqon doono hagaajinta maqalka iyo muuqaalka waxaan kaga hadli doonaa mawduucina maanta arrin dareen ah oo aniga igu dhacday oo marka aan xal u raadiyay kadibna aan xal aan ku qanacay aan helay laakiin hadduu jiro xal kaleeto adigana waa la wadaagi doontaa arrintaas waxa weeye markay soo dhawaatay waxaas ku soo dhawaaday fooshii ayaa waxaan dareemay farax iyo walwal marka waxaan isiri waxay labadan dareen isdiidan haddana isku waqti yimid waan rogrogay arrintii waqtigii waa lasoo dhaafay cunugii baa dhashay alxamdulilah kadib arrintii haddana dib u bilaabay inaan ka fikiro oo markaan ka fikiray faraxi waa wax la gartay walwalku muxuu yahay maxaan u walwalayay asxaabteydii baan la sheekaystay oo aan arrintii weydiiyey isku celcelinay hadal runtii waan garan karaa in walwalka imaan karo hadduu ilaahay uu ku siiyo ubad aan lixdiisa lixaad u dhammayn oo kale walwalkayga markaas uga xidhna haddayse dhacdo ubadka in ka yar baan jeclaanaya kuwayga caadiga ah lixdooda lixaad qaba mise waxaan oranaya muxuu ilaahay aniga ila doortay waxaan oo makasalaha waay mii aniga maxaa dhacay waay sidaan igu dhacday mise sidii rasuulkuna sheegay dabcan yani qofka mu'minka ah amarkiisa dhan waa khayr hadday shari asiibto wuu ku sabraa oo ajar buu ka helaa hadduu khayr asiibana wuu ku xamdiyaa oo ajar buu ka helaa anoo markaa taa ku qanacsan yani in hadduu ilaahay ii qadaro inaan helo ubad lixaad aysan u dhammayn inaan ku sabrayo oo markaa dee isa ku soconaysa haddana weli waxaan dareemayay in walwal uu jiro weli waxaa kaloo jiro in ubadkaaga aad jeceelka u haysid uu yahay mid aan waxba ku xidhnayn waa jeceel aan waxba ku xidhnayn sidoo kale ubadku isku jeceel baa loo qaadaa dabcan ayagu way ku kala dhowaan karaan midba baari noqon karo midba iska yara caasi noqon karo laakiin jeceelka u qaadaysa ubadku waa hal marka muxuu yahay walwalkan ayaan ka fikiray walwalkan weli ugu jira yani ana waxaasoo dhan og oo ku qanacsan xadiiskaas dee yahay mid idejiyey alxamdulilah haddana walwalkii weli waan dareemaya inaan walwalkii iga dhex buuxay marka dee aan saaxiibadii la sheekaystay xalkii anigu aan helay wuxuu noqday walwalka inuu yahay walwal aan xaggayga aniga ahayn yani aniga inaan sideenu haynaya yani walwalka aniga uma saabsan laakiin waa dhinaca kale waxaan u walwalayaa ubadka haddaan ka hor dhinto sidee u noqonaya xaalkiisa haddaan siduu ummadii kale ula qabsanayaa siduu yani uu ku gaarayaa meelihii uu doonayay inuu gaaro yani walwal aan u walwalaysid ubadkaaga weyaan marka aniga saas aan isku qanciyey taasayna jawaabteeda noqotay haddaad jawaab ka duwanaysid waxaan jeclaan lahaa inaad nala qaybsatid sidaa iyo nabadgelyo